nimankii tuugada ahaa hadda waxay la wareegeen tuuladii, kadibna waxay ka soo wareejiyeen alaabtoodii buurta waxayna soo degeen tuulada dhexdeeda. Markii ay intaas sameeyeen, waxay soo kaxeeyeen maxaabiistoodii kale waxayna soo geliyeen isla meeshii ay gabdhihii tuulada ku jireen ayagoo raba inay dhammaantood isha ku wada hayaan. 2 nin oo ka mid ah nimankii tuugada ayaa waxay soo wada ururiyeen dumarkii tuulada iyo carruurtii waxayna ku wada xareeyeen hal qol. Kuwii kalena waxay ku qasbeen haweeney inay cuntada u kariso. Inkastoo dadkii tuulada dhammaantood gaajo haysay, haddana maysa awoodin inay wax weydiistaan. Saacadihii xigay, nimankii tuugada ahaa waxay waqtigooda ku dhammaysteen inay wax cunaan oo khamri cabaan, qorsheeyaanna midkee maxaabiistooda ah oo raaci doona iyo sidoo kale midkee ayay ka takhalusi doonaan. Xilligii dambe oo habeenkii ahaa, nimankii qaar ka mid ah waxay dareemeen calool xanuun saa'id ah heeray gaareen inay istaagi waayeen. Kuwa kaloo badanna waxay dareemeen labalabo saa'id ah heeray bilaabeen inay matagaan, mana aysan joojin karin ilaa dhammaan wixii calooshooda ku jiray soo daadiyeen. Mid ka mid ah oo saa'id u xanuunsaneen ayaa wuxuu dhahay haweeneydii cuntada noo karinaysa ayaana sumaysay, wuxuuna u sheegay tuugadii inay bannaanka u kaxeeyaan kadibna dilaan. Haweeneydii isla markiiba way diiday inay markaasi sumaysay, laakiin maadaama aysan caddayn haynin cidna hadalkeeda ma aysan maqlin, kadibna bannaanka ayay u kaxeeyeen si ay markaasi qabowga ugu dilaan. Cuntadoodu wax dhibaato ma aysan qabin, balse cudurku wuxuu ka yimid markii ay biyaha ka cabeeyeen ceelka. Gabadha yarta adeerkeed ayaa markaasi dhiiggiisa ceelka ku faafay, sidoo kalena ceelka waxaa ka buuxay saxaro aad u fara badan. Haweeneydii la dilay qayladeeda ayaa bannaanka ka yeedhay. Dumarkii kale waxay laabta gasheen carruurtii yararka ayagoo rajaynaya inaysan sidaas oo kale u dhiman oo waxaanu dhan mar dhow dhammaadaan. Waxay la yaabeen haweeneydii ayaa soo laabatay iyadoo waxba qabin oo u muuqatay inay wax ka soo cabsatay. Ninkii haweeneyda u kaxeeyey si uu markaasi u dilo ayaa ka soo dabagalay meesha. Cabbaar dhan ayuu meeshaas taagnaa isagoonan hadlaynin. Xoogaa kadib waa uu jilba jabsaday, taasoo markaasi soo muujisay dhaawac aad u weyn oo dhabarkiisa kaga yaalo. Markay intaa arkeen, 2 nin ayaa seeftooda soo qabsaday, kadibna si tartiib ah ayay u istaageen. Sidii albaabka u fiirinayeen ayaa mugdiga waxaa ka soo baxay hal nin oo samurai ah, kaasoo markaasi iyaga fiirinayay. Maalinkii hore, markii ninkii tuulada u dhashay uu arkay tuugada, waxa uu ku laabtay tuuladiisii si uu uga digo dadka tuulada, balse sidoo kale wuxuu aaday tuulada u dhow si uu markaasi caawinaad u weydiisto. Nasiib wanaagna wuxuu la kulmay samurai. Nimankii tuugada ahayd isla markii waxay u istaageen inay la dagaalamaan, balse waa uu ka dhaqso badnaa oo isla markiiba uu kala gooyay. Markay intaa arkeen, dumarkii waxay u arkeen fursad, kadibna waxay weerareen tuugadii intii soo hartay ayagoo ku dilaya mindiyo yaryar oo haysteen ayagoo aad u caraysan. Dhammaan tuugadii waa ay dileen, aan ka ahayn hal mid, kaasoo gabadhii yarta ahayd jiitay, dhuuntana kaga qabtay seefta, una sheegay haddiise sii daynin inuu dili doono. Balse gabadha yarta fikrad kale ayay lahayd, wax ayay kaga mudday dhuunta, taasoo isla markiiba ka keentay dhiig saa'id u fara badan, markaasna meesha ayuu isla markiiba ku naf waayay. Waa uu dhintay, dhammaantood tuugadii waa ay dhinteen. Xoogaa kadib, samuraygii wuxuu arkay wixii ay gabadha yarta u isticmaashay si ay tuuga u disho. Biinkii tinta wuu soo qaaday, kadibna wuxuu ku yidhi, biinkan xagee ayaad ka keentay? Markaas intay fiirsay ayay waxay ku tiri, waxaan ka soo qaatay meydka adeerkay markii aan ka soo bixi waayey ceelka. Ma ogtahay qofka iska leh biinkan? Ayuu gabadha yarta ahayd weydiiyey. Maya, ayay markaasi ugu jawaabtay. Waxay leedahay calaamadii boqortooyada, ayuu ugu jawaabay. Waxaad ku qasban tahay isla waqtigan inaad i raacdid. Maadaama wax awooda ay kula dagaalanto aysan haysan, waa ay ka ogolaatay ninkii. Gabadhii yarta ahayd fariskiisa ayuu ku kaxeeyey, intaasoo dhanna wuu daryeelayay, asagoo hubinayay inay markaasi gaadho qasriga boqortooyada iyadoo nadiif ah, sidoo kalena si fiican loo quudiyey. Qasriga nolosheeda wax u eg ma aysan arag,
wuxuu ahaa mid aad u qurux badan, sidoo kalena aad u cabsi badan. Waxay isweydiinaysay meesha ay ku dambeyn doonto. Waxay noqon doontaa in markaasi la xiro maadaama ay waxaday, ama kaba daranba la dili doono. Markii ay gashay gudaha qasriga, waxaa la geeyay beer aad u qurux badan. Kadibna waxaa la tusay haweeney meeshaas taagan, waxaana loo sheegay inay u geyso biinka iyada una sharaxdo wixii dhacay. Sidii ayay samaysay. Markii u geysana amiiradii saa'id ayay u faraxday. Waxay u sheegtay gabadha yartaa in mar ay la safraysay askarteeda uu kaga dhex dhacay ceelka iyadoo biyaha ka cabayso. Markaasi ma aysan awoodin inay kala soo baxdo maadaama ay degdeg ku safrayeen. Sidaas darteed waxay u soo dirtay samuraygeeda si uu u soo saaro. Waa isla samuraygii gabadha yartaa iyo tuuladeeda badbaadiyey. Amiiradii waxay laabta gelisay gabadhii yartahayd ayadoo markaasi u sheegaysa inay aad u mahadsantahay maadaama ay u soo celisay biinka hooyadeed. Waxayna u sheegtay wax walba ay rabto waa ay siini doontaa. Gabadhii yartahaydna waxay ugu jawaabtay inay jacayl un rabto. Gabadhii yartahayd jacaylkii iyo xanaanayntii ay codsatay waa la siiyey. Waxay nolosheeda intii ka dhibneedna kula nooleed qasriga amiiradda.